anigu se markay ahayd 8 baan maase u bedelay isla sheekada iyadoo duruufii u kalifisay waxa la rumuus baa gabayaagu wuxuu u baahdaa duruufaha adag markuu nool yahay rumuus buu baahdaa inuu wax ku sheego marka waxa maasa anigu isla sheekadaas anigu da siyaasadda uga jeeda ayaa laakiin sida intma dhaafin iyada igu filaatay sidii ay sheekada ay igu sheegtay ayuun baan aniguna u sheegay dabadna wulkii wax kala soo baxay oo kala soo baxu baadayni Soomaalida baad leeyahay barigaas waa 8kii waa dhaxdhiga markaas aniga ma sayda akhriyayso idoo waa isla sheekadii waxa laga rabaa verbatim waxa saalo maraan gabanaha bari galabaan adowgeedu fadhii jiray sheeko kooban kaga guray wuxuu yiri guyaal hore boqor geesalaa jiray oo goostay waligii ilaa inta lagu garan fule waagadiisa wuxuu goorba hubiyo gedfo oo cumaamado galxiir baa sirtii helay godob buu satarsaday garashadu u sabab tahay nin gafaana laga dhigay hadduu gaarsan waayana inuu gowrac jira maqal hadbagiirka loo kici goldololadu helay inay gudubta loo diiday isla waagartiisay walgu tabay la foolqaan hadbagaarka meel dhigay goobyaalka leelkii kolkay gama iswaayeen galid xarugtiisa gurigii ka soo bood gudcul beegsay duurkii galiya dugaaga leh wuxuu gabi dhacleeyaba kolkii waagu gala ciidi geed hoosti faadfaad sida bahal godeer quday dabadeed gafuurkii gadka ciida saariyo goofkii sirtuu helay gaagaabsi ugu sheeg dunuucdiina gaadhsii inuu boqorka goojaa madax goodir leeyahay marka basaasir baa soo maray oo qoladii warka qaadi jirtay markaas waxa hadeegama geysna waxaad iga guraysaa sheeka bari la kala yu qaadi baa sheeka xadiis hadeegama geysna waxaad iga guraysaa sheeka bari la kala geesigu warkiisi ku caburay kolkuu galay garbihiisa laga duul gabigiis fuday duqay goobtiina aasiyo ka hurgufay guyiisi galbay oo ka sii socay ka gadaala meeshii laga goorti roob helay geesaa ka soo baxay waay maasadaas oo iyaduna isla sheekada kaaga sheekeeya haddaad istiraahdo akhri waxa laga baahan yahay inaad verbatim u akhrido labada baa ku kala sheegaya yani waaya tixdu waxay kaloo leedahay wax la xaraf raac oo ay kaga duwan tahay tiraabta waxay leedahay wax la xaraf raac waxa weeye alliteration bay leedahay tixdu waxay leedahay alliteration waxa la yiraahdaa afjirisa lagu yahay alliteration waxaynu afafka kale kaga duwan lahayn aynu dir shalay baan qolo macallimiin u sheegay afkeenu wuxuu ku yaala horta waxa anigu eegay afkeenu wuxuu ku yaala geeska bari baynu ku lahaa geeska bari waxaynu xal leeyahay Djibouti oo iyadu waa Soomaali bay ku hadlaan laakiin se Djibouti afar baa ku nimanka afar markaan xuduudaha iska dhaafo dadka Soomaaliyeed baa ka hadlaya waxaynu xal leeyahay dadka afka Soomaaliga wuxuu xal leeyahay afar ولي عفكي يا أوروبا أيو بيع كجليه يا بورن يا ساهول نمكلا إلهه كلون حقائد كوفوت أفريقيا ريد الله يلبا وما كان أفهم الصوماليات كهذي وحل اللي هي تابطة وحل ولا هي أفف كليها كشتك حتى أم حالك حل بالهيد حد بينور حي ولا ما ينور حيسا الصومالي يقول أم حالك لو هو قبضوا كسودوا ليه لو قدموا أنتوا وشوغا لقى هذيا ما كان حاجة سيء قبائل في سوبر بريالان ولا ما حل له الصومالي ولا ما حل له عفتها حل له وحل له إلهي بتيستها أفف كليها كشتك أي حل له الصومالي أفف كشتك أفضل حيو وحد يجا حد له أفف كشتك وحد كشتك عندي لا نقول وحد وجه ده أفك الصومالي marka afafka loo sii abtiriyo afka Soomaaligu wuxuu la baahan yahay afafka xadka la lebu la baahan
oo loo yaqaano kushitika waxaa ka mid ah afka Soomaaliga oromada afarta saahuuga booranka reediila waxay saahuugu wuxuu ku yaala waxa ku hadla dad yar oo ku nool waqooyiga Kenya oo Soomaalida hadla leh marka abtirsato kushitigu marka uu si abtirsigado saahuuga ugu dhow abtirsibaha afka Soomaaliga ugu dhow ay isku sii xigaan oromada marka lagu abtirsiibana marka laga hadlayo afka laga hadlayo waxa laga hadlayaa dhismaha erayada mar waxa ku xagga erayada waxa uu ka wadaagnaa baadigiisa oo loonay afafku waxa isu kala xigaan mar waxa sabab siyaabaha isu kala xigaan waxa kamid ah mar waxa adeegaysaa inta eray wadaagaan baadigiisa mar waxa adeegaysaa qawaacidka sida garaamarkooda u sameysmo ay isu kala xigaan oo afafka oromadu afafkaasi xagga qawaacidka marka sida ereyadu isu bedbedelaan marka ka hadlayso waxa jooga iyo waxa maqan iyo waxa soo socda aan kala dhigayso sida ereygu falku isu bedbedelo si isku mid ah buu isu bedbedelaa afafka isu dhow oo sidaas ay isku xigaa kuwa kale waxay isku xigaa xagga ereyada waxay isku xigaa xagga qawaacidka ereyada marka dibka tirada qaato tirada dibka afarta yaba ay lagu dhaw oromada oo waa u fiirsataan isku wada mid bay dhahay oo marka imika oromadu ay tirinayso 20 markuu ka bilaabo xaq oromada qaar bay iska badan bay iska mid tahay markuu 20 ka bilaabo 20 sadam 40 50 60 afartu oromadu waxa oranaysaa 40 50 iyaga inaguna waxa leeyahay afarta ka seen u socono ayuu baynu Soomaaliga oranayna كنت كاير يقدر هذا واحد اللي شبوها حق هراء اللي كانوا لبس ده شبه هيدي أنا ما دي وحكا عقل بيكون على سؤال كبير يقول تودي شلتهم بيتيلين إلا هو واحد اللي كنتم سبب تيوالو بركان سبب تبالغ على أفكار واحد شقيسا سبب تيوالو الله حكى لبعض وعوي واحد كنتم لي عفرتها أو إذا قلنا إذا القراء بايقول السيدة أو تريسا عفرت له وذاك كنتك ويقول الله تعالى عفرتهم صدق كنتها لكن سيقوم حي هل كيف فرق كلين إن لقى إيو رمضو 5 waxay u dhaqaanaa 5 laakiin saxaafadtu waxay u taqaanaa kole waxaan caawa jecelahay caawa halka jilaabariji u taqaaw halka waxay u yaqaanaa kole 5 koledoodii baa markay gaadhaan de xageer dambe konton noqotay ilaguna way la wadaagnay ilaguna way la wadaagnay oo kontonku waa garac halkaa ka soo galay afartuu inaga soo galay kontonku laakiin shan tabka inuu dhaqlaabay inagu ahayd sida caadiga ah shan tabka inuu ahayd inagu aqlo shan tabka waayahay marka afafka waxa ii geystay mar waliba tobiga laakiin tobigu waa tobiga ka leeyahay wada interestigu leh waa wada interestigu leh laakiin meelkii ma aha lu socday waxaad qaadataa afkeeda marka uu gabayga la tirinayo alliteration baa iigiye hadalka alliteration baa iigiye marka la tirinayo ereyada alliteration kala tirinayo afka Soomaaligu wuxuu ka bilaabay waxa la eega xarfo isku ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayaa tixdu leedahay ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayay leedahay afka Soomaaligu marka la gabayo ay soo qaadanaysaa oo aad tirinaysaa marka waayahay lixdan wuxuu yidhi labaatan wiiliyo nimaan wali lamaanaanin nin labaatan wiiliyo nimaan wali lamaanaanin lixdan nimay u fooftiyo nimaan layli raranaynin mar haddaan ninaba laasanay waxa u laaqaya maxaa kaga lulmoodaa adduunnimaya weeyaane nin baa ku gabiyacanka laamley buu tatiriyaa su'aalka baysid xarafka uu ka socdaa waa erayo buu qaadanayaa laam ku wada bilaabma marka laamkii halkee laga rabaa waxaa laga rabaa inuu eraygu ku bilaabo nin labaatan wiiliyo nimaan wali lamaanaanin lixdan nima u footo iyo nimaan layli laabkiiba ku bilaabaysaa maxaa mar haddaan lidaba laasanayn waxa uu laacaya xarfahu
inaga wuxuu ku xarfo isku mid ah bay erayadu ku bilaabmaan imika gabaygan qaatay waxay ku wada bilaabmaan lam bay ku wada bilaabmaan waa inuu sidaa raaco alliteration baa la yidhaahaa gabay maase kasta waa inay taa raaco laakiin se afafka kale oo ay kuwan aynu dariska lahay ka mid yihiin aan idiin sheegay oromada iyo cafarta iyo ay ka mid yihiin kuwa aynu isku dhownahay iyo kuwa kale aan maqasheen oo dhan oo aan isla yeeshuushkula waa ka mid carabida ingiriisiga talyaaniga xagga dambe erayo xagga dambe wuxuu ku dhamaadaa gabaygoogu erayo xarfo isku mid ah buu ku dhamaadaa eeg keenana waxa weeye xarfo isku mid ah buu ku bilaabmaa eraygu waa weydaan oo isweydaan inagana xarfo isku mid ah ayuu ku dhamaadaa oo xagga dambe ayuu ka raacayaa marka uu ka raacaya baanad sucaadu faqalbiya alyawma matbuulu kacab ibnu zuhayr waxaa xasuustaa markuu akhriyay qasiidadiisii nabigaa ku dilayay rukii lagu yidhi calayhi salaam gabayaaga weyn waa kii ahaa kacab ibnu zuhayr ibn abi salma qasiidadiisii dee cajiibka ahaydee uu nabiga ku beer xawsanayay markii la yidhi waa lagu dilayaa baa nabigaa la yidhi walaalkii bajiir ibnu zuhayr ibnu abi salma ayaa yidhi waan waxba kuma yaalaa nabiga agtiisa oo nabigaan caydaa baa la yidhi oo wuxuu banneeyey dhiiggaagii buu xalaaleeyey ahdara dambaka baa la yidhi قصيدة مدلعيد يهي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول قصيدة كبلا بطا وكونني اقلام بك ولا ما ليس أقول مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل الله بك ولا ما ليس الله بك ولا ما ليس إن رسول الله أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول لا تؤاخذني بأقوال نشاتي ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل إن رسول الله لسيف يصداء به مهند من سيوف الله مسلول وحكى دبوه خير قال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول laab kale halkuu kala eeg laab kale xaqii dabuuka galaya xaqda laab keedii kale la adigoo lugooyaa waxa lumiye mooyaane waligiiba liibaan ma helin wili laasibo xaqan uu kala galaya waxa la yiraahdaa qaafiyad baa la yiraahdaa marka mid qaafiyad baa la yiraahdaa afcaaliga fiisana waxa lagu raayim baa lagu yiraahdaa كاننا وحيا alliteration وحق هروقلا marka igu soo celi hadaba maasadii Soomaaliga ee Allah taxdiya tilaabtu maxay ku kala duwan yihiin taxdiya tilaabtuna bal waxay ku kala duwan yihiin in midna la soo xigto midna la soo xigin talabaad waxay ku kala duwan yihiin tixda Soomaaligu waxay leedahay xaraf ra hadii xarafka laga baxo uu jabaysaa maasadu way jabaysaa hadii xarafka la ko xarafkuna halka waxa ku sii jira يا إلهي وحنا سيجلي كليلو حرفنا عسى يسقون برق حرفنا على شروط فربضله أو مركو ما راعي مركو لما لياش راعي مركو راعيو قام تحنا مركو راعي يصير الله سبحانه لما حرفنا على يسقون عذك ونبى إيج حرف وحنا نقول إيج ذيك اللي يدي وحي اتحاد كنت هي حرف راعو حرف كلي يالقوا لنا يا قادو أفسبالي كتشره الصومالي قال له لما يصد الحرف وحا لقول لي حرف كلي الراء خدنا هكبحين وجدده بعدين دمركا وحا لغا ربا الى خضر تحي خضر افكا الى خضر والى هيستو فكبول رجاق بدل هذا قبل ها كقبيسو والى هيستو كيش لو ها ادي خديك لو بدخله وتروح البيسا او ودخل البيسا او waxay kula galaysaa af carabi bay kula galaysaa ayaa fidib oo waxa argaysaa ninkiyo carabi bila ku rafanaya markuu af Soomaali waayo ayaa carabi bila kaaga rafanaysaa ay kaaga rafanaysaa qaarada waxa bay ku tiriyaan baaf oo dadka af carabiga u beerahdaan af carabi ku yara badiyay baaf Ingiriisigu waxa ku muuqanaysaa hodanimadii baa ku yar oo xarafka la yiri ka hadal ayuu ka waayay xarfo badan halkaasuu kalmada carabiga iskaga yara bishlaya ama midkii Hindiya haduu de Hindiga oo helana uu bishlaya way iska horeyn oo uu galaya qalaba isu gabiyay reermiyo reer magaalka isu gabiyo hogaasa
reer baqalooyinka af ingiriisiga baratay bi abaya fitra oo biiga u kacay ayaa ilaa reer bi istridaa'in yara ishaqso oo ay u haystay markaas waxay ku tidhi halka aad ka soo bood ciyaarta soo waxay isleedahay ka yeelay dhul dhaxda suuqa ka xidhan aw beedka ah aan la kacay dadbaystay markaas waa laba tuulay u sheegaysaa waxay tidhi kurtiriyo kolba caday kurtir iyo waa laba magaal waa laba tuulo kurtiriyo kolba caday waxay tidhi kurtiriyo kolba caday waxay tidhi kurtiriyo karuurey bay tahay kurtiriyo karuurey ayaba kolba u dhow bay tidhi waa tuulo kale inankii reer miyiga waxa loo magaalo shaydaan ay tirinayso tuulooyinka wada kaada buu ka wareeray markaasuu sidii arwaata ku xidhay dab xal tabaysa af badan ku hadli maayo af bagaray wuxuu sidii iyadoo daaf galaasiga leh qoraaf galaasiga ku badayso wuxuu yiri often ways ka always buu often wuxuu yiri often ways ka always adfay bay u dhowda kawdi ingiriisi lima professore way ku adag tahay buu kawdi hadduu afku kaa noqdo soore way ku adag tahay waa mashaakil oo aad xarafku kugu adkaado aad soore way ku adag tahay seerka ilaa afgiriiska u yaqaana hadday kaa noqoto waagta waxa higaadu xarafraacu wuxuu ilaaliyaa wuxuu cadeeyaa hodannimada qofka gabayaaga ah oo waxa la doonayaa xaraf kaliya isaga oo ka bixin marba waxa kugu soo baxaysa qolooyinkiina isku dayday higaada imika qaar way halka way fadhiyaan baa laga yaabaa rag isku dayday ragiina bilaabayo waxaad ku marba kalmad markaad beedkii soo yara dhisto ayaa waxa kula kulmaysa kalmad baa kaga macaanaanaysa mahshi aan xarafkii loo baahnaahayde ayaa markaas si allaale si aad u duda garan waysa kalmad xarafkii ku galimayso markaas ay barbarkii qaar carabi baa ila ducaanaysa marka ducashay ku gabagale laba ducdo walaga hada ducato ixtiraaho saala yari ka soo dhaqday gabay baa marka raga qaar balay ku xadagtaa ninka gabagiisa marinayay ee laha rag waxaan ku maamulay qaranba ku maamuusi ninka laha meel buu ka gabayay markaas waxa soo gashay wuxuu isiri dhaaro oo wuxuu duliyaa wallahi billahi tallahi buu isiri wallahi billahi tallahi midkii u galibaysidii xagabay uu ka socdaa waa miilay rag waxa ku maamulay qaranba ku maamuusi masayna loo tolay waa meelta loo tahay wadaalkii ligeelo waa ka gabagalay markaas wuxuu isiri dhaaro ma gaba saddexdii markaas duu garay wallahi billahi wuxuu yiri saddex magac alle xaajada la marisiiyay buu balagada xaqu kaga yibi intuu iska wada tulay wallahi diya billahi di ayuu miinkiisu u galay u dhaartay ninkii u dhaartay saddex magac alle xaajada la marisiiyo farshaxanka bulku halku ugu tagay daawo si uu miinka ugu si aanu miinkii ugu bixin ayuu wuxuu soo qaatay khayaalkiisii magac saddexdu waa magac ilaahay buu markaa magac baa u soo baxay beeshii waxa uu ka hadlayaa waa magac ilaahay magacaada waa magac waa miimkiina uu ku jira way ku galaysaa buu yidhi saddex magac alle buu yidhi xaajada alle wuxuu kaga baarbay wallahi billahi tallahi eeg waa halka ay ku jirto farshaxanka gabayaagu nin kale oo gabayay ayaa ilaahay buu bariyay markaasaa waxaa soo martay walahu al-asmaa'u al-husna fad'uhu biha ba'ayat qur'aan tirada walahu al-asmaa'u al-husna fad'uhu biha ilaahay wuxuu leeyahay magacyada asmaa'ul husna la yiraahdo ee ku bariya baa leeyahay ku bariya ilaahay ba qabaraysan ilaahay ya rahmaan ya rahiim ya wad ila ku baraydo magacyada ilaahay baa lagu bariyaa baa aad qoraysa marka ilaahay barayso marka gabaygiisuna waa bacli baba qamiskii baa dhitay boqolkay oo heedhay taas waa oo bacli buu ku jira bas 9 masuuli oo bisay haayeen magacyada 9 iyo bacli dalada iskali baa meesha la waa ba xaraf ku dee ما الله بل سالي ساشي في كلا بكره واي وحوري بقول كاغا مغا متكلا يا سلام